Somaliland qaran soddon jirkiisii dib u dhashay waa qarankii Yuusuf Maxamed Ismaaciil haddii fanaanka caanka ah ee Maxamed Axmed Kuluc ayaa mihii farxadda gobonimo iyo israaci Somaliland iyo Soomaaliya uu heesu ku lahaa ma gowdo candhadii golaha marise aan maalno hasheena maandeeq xaqiiqdii waxay sax ku ahayd ama sax ku ahaan lahayd ma gowdo candhadii golaha marise guja lagu maalay maandeeq fikradda Soomaali weyn waxay xoogeedu soo ifbaxday bartamihii dagaalkii labaad ee adduunka 1939 ilaa 1945 xilligaas oo ay bilaabeen halgamadii siyaasiga ahaa ee gobonimo doonka Soomaaliyeed oo socday intii u dhaxaysay 1943 ilaa 1960 halgamadii gobonimo doon waxay dhammaantood ka mideysnaayeen aaminsaanta aragtida Soomaali weyn oo ahayd in la xoreeyo mideeyo hal calan iyo hal dawladna isla markaasi la hoos keeno shantii Soomaaliyeed ee gumaysiga reer Yurub kala qaybiyay Somaliland waxay ahayd dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee gobonimada qaatay 26 Juun 1960 ummadda Soomaaliyeedna waxa ahayd dadkii ugu horeeyay ee ka dhabeeya hirgelinta aragtida Soomaali weyn markii ay 1 Juulaay 1960 la midoobeen koonfurta Soomaaliya lana baxeen Jamhuuriyadda Soomaaliyeed midowgani waxa uu didiilo weyn ku abuuray dhammaan dadyowgii shanta Soomaaliyeed waxaana rajo weyn laga qabay in dawladda cusub ee Israaciil ay horseed u noqon doonto xoreynta iyo keenida saddexdii gobol ee kale si fikradda Soomaali weyn u dhabowdo loona abuuro jamhuuriyad weyn oo Soomaaliyeed kana dhalata Geeska Afrika nasiib darro aragtida Soomaali weyn waxay fikrad ahaan iyo ficil ahaanba u jirtay intii u dhaxaysay 1943 ilaa 1960 burburka midnimadii dhalatay iyo didiiladii laga qabay Soomaali weyn waxay la kowsatay Israaciil 1960 kadib markii ay Soomaaliya diiday inay ixtiraamto wadaagga dawladii ka dhalatay midnimadii cusbeed si toos ahna u boobtay xilalkii iyo masabkii hogaaminta wadankii midoobay Israaciil 1960 waxa uu dhex maray laba dawladood oo cusub oo siman kala dhashay maxkamada Ingiriiska ee Somaliland iyo mustacmaradii Talyaaniga ee Soomaaliya kuwaas oo ay kala hogaaminayeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo waqooyiga ahaa iyo Ra'iisul Wasaare Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo koonfurta ah waxa la filayay in marba qolada madaxweynaha qaadata mooye ay qolada kale qaadato Ra'iisul Wasaaraha jogooyinka kale ee muhiimka ah ee dawladana si siman loo wada qaybsado ayaan daro waqooyiga oo ah Somaliland waxa loola dhaqmay sida gobol ka tirsan koonfur oo kale sida Mudug ama Banaadir dadkiisuna waxa si cad loogu doodsiiyay qaybtii ay ku lahaayeen jamhuuriyaddii wadaagga ee cusbayd sidaasina koonfurtu waxay markiiba ku fashilantay inay fahamto qiimaha midnimada markii koonfurtu qaadatay madaxweynihii ugu horeeyay oo ahaa Aadan Cabdullaahi Cusmaan 1960 ilaa 1967 waxay ku darsatay ra'iisul wasaarihii iyo jogooyinkii ugu muhiimsanaa golaha wasiirada iyo ciidamadii sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska iyo qaar kale oo lamid ah baarlamaankiina si xaq darro ah ayay u bursatay koonfurtu wacad furka inkaarada iyo cadaalad darrada ay xukuumadii rayidka ahayd ee koonfurta ku kala kaceen dadkii waqooyi intii u dhaxaysay 1960 ilaa 1969 waxay muujisay sida bulshada aynu israacnay ee koonfurtu jaahil uga ahaayeen qiimaha midnimada iyo waliba fahmidda dawlad wadaaga doodsigaasi foosha xumi waxa uu keenay in dadka waqooyigu isku ciilkaambiyaan sidii fududeyd ay dawladnimadoodii cusbeed isla markaasi ugu loogeen koonfurta caradaasu waxa ay keentay in qaar kamid ah saraakiisha militariga ee reer waqooyiga ahaa ayaa inqilaab dhicisoobay isla markaasi ay ku rideen magaalooyinka Hargeysa Berbera iyo Burco bishii December 1960 si ummadda waqooyiga loogu soo cesho dawladnimadii lagu doodsiiyay iyo waliba madaxbannaanidiisii
waxay xaaladdu cirka isku tooshay markii uu Soomaaliya ka dhacay inqilaabkii military ee uu hogaaminayay kale taliye Maxamed Siyaad Barre oo shacabkii ku dhaqanaa gobolada waqooyi haatanna ay Somaliland kula kacay tacadiyo aan tiro lahayn isla markaana lagu dul qaaday dhammaanba xorriyadka muwaadinka. Arrimahaasi waxay keentay in magaalada London ee cariga Ingiriiska lagaga dhawaaqo ururka SNM. halkan qaraadh oo 10 sano jirsaday isla markaana lagu waayay naf iyo mood tiro badan kadib guushii u weyneed ee SNM gaadho ayaa ahayd in horaantii 1991 shirweyne ballaaran ay ku qabteen magaalada Burco kaas oo aakhirkii lagu gudoonsaday in Somaliland dib ula soo noqoto madax bannaanideedii. muddo 14 sano oo ay Somaliland madax bannaanayd iskeedna isku maamuleysay waxay ku tallaabsatay horumar wax ku ool ah. waxay sameysay nabadgelyo caga adag isla markaasi ku taagan kala dambeyn hannaan dawladnimo doorashooyin dimuqraadi ah waxaana halgan isla markaasi ugu jirtaa sidii aqoonsi buuxa dunida uga heli lahayd. ummadda Somaliland marnaba diyaar uma aha in godkii shalay lagu qaniinay ay dib ugu soo noqdaan iyadoo filashada shacabkani ku qotanto kamina dhalinta halganka aqoonsi raadineed ee qarankan.